madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo saaka aroortii ka soo kicay timay caasimadda ayaa socdaal ku soo gaaray xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera intii madaxweynuhu safarkaasi ku soo jiray waxa uu soo dhaweyn balaaran kala kulmay bulshooyinka ku dhaqan deegaanada ku teedsan jidka isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera abaara 9 subaxnimo markii ay goorsheegtu tilmaamaysay waxa uu madaxweynuhu soo gaaray kontaroolka galbeed ee magaalada Berbera halkaas oo ay ku sugnaayeen kumanaan kamid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada xeebta Berbera oo isugu jira qaybaha kala duwan ay bulshadu ka kooban tahay maamulka gobolka Saaxil mas'uuliyiinta degmada Berbera oo dhamaantood bay iyagu u taagnaa sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen madaxweynahooda intaasi kadib waxaa madaxweynaha loo soo galbiyay guriga madaxtooyada ee magaalada Berbera waxaana halkaasi warfidiyeenka kula hadlay isla markaana ka warbixiyay ujeedada socdaalka madaxweynuhu salka ku hayo afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Jaamac Warsame waxaanu iyo safarkiisani wuxuu daaran yahay inuu madaxweynuhu u kuur galo xaaladaha kala duwan ee deegaamadan iyo gobolkan ka jira sidoo kalena wuxuu madaxweynuhu darsayaa dadaalka horumarineed ay xukuumaddiisu ka wado deegaamada guud ahaan deegaamada Soomaaliland gaar ahaan deegaankan aynu saaka joogno madaxweynuhu wuxuu dardar gelin doonaa hawlihii horumarineed ee halka hore uga socday waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dadweynihii kala duwanaa ee tan iyo saaka madaxweynaha soo dhaweynayay maamulada tuulooyinka degmooyinka iyo maamulka gobolka Saaxil kan degmada Berbera iyo maamulka dekedaha Soomaaliland ee halkan fadhigoodu yahay aad iyo aad baa u mahadsantiin dhamaantiin baada saxaafadda Soomaaliland ee ka hawlgasho gobolka Saaxil aad baan ugu mahadnaqayaa intii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu la wareegay xilka waa markii koobaad ee uu socdaal ku yimaado xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera waa Cabdirashiid Mubaarak Cabdi Cabdirashiid Suul goobjoog TV Berbera